Duni gabaabsi ah ayaan milicsanaynaa, maalin walba sii macaansanaa, damac badanna nooga sii jiraa, iyadoo dhibaatooyin aan indhaha laga qabsan karin aan aragna waagii baryo iyo gabalkii dhacaba. Bal 5 sano jir iyo 6 sano jir maxaa laga kufsanayaa? Ma taqaana waxa lagu samaynayo, keliya xanuun iyo argagax iyo saameyn nolosha mooyee, qofka kufsaday muxuu kaloo dhaxal siiye ubaxaas soo baxayo. Asaguse kufsadaha ahi gabar dhalatay ma arag miyaa ama uu waalid u yahay? Damaca gabar yari iyo xitaa mid qaangaar ahi ka geli karo muxuuse yahay oo uu mugdiga u gelinayo gabadhaas? Damiirkii iyo mansabkii ninka ragga ahi lagu yaqaanay aaway? Diintii iyo caqligii aaway? Maankii iyo maskaxdii meeyay iyagana? Qofkaas aan aragno maalin walbana masiibada reeraha kala duldhacaya, dad baa meel u fadhiya oo ka dhiga inuu masaajid ka soo baxay. Wuxuu leeyahay odayaal iyo nabadoono isku sheegayaal, xitaa Ilaahay hortiisa isku dayaya inay dembigiisa tirtiraan, oo qabyaaladdu indho tirtay. Waalidiin buu haystaa oo uu guryaha u joogaa, cuntana ku daldala. Maamul kastana cid wax dhihi karta ma jirto, waayo maba arag dowlad u awood sheegata oo maxkamad soo taagta. Balse waxaan ognahay oo ku sabirnaa inuu Alle yahay cadaalad fale, u cadaalad fali doona dadka dulman, maalinta aan laaluus jiri doonin ee yowmul qiyaama. Waalid walba oo caruur dhalay waxaan kula talinayaa inay ubadkooda sidii hooskii oo kale ay ula socdaan oo ay ilaashadaan. Wiilasha guryaha ugu waaweynna waa inay ka warhayaan ilmaha ka yaryar. Caruurta waa inaan la ciilciilin oo aan la cidlaynin, oo mar walba lala sheekaysto, banaan aadista badanna laga taxadaro. Waalidkaygiyow, Allaha idinla garab gala caruurtiinna, Allaha idin ammaansado. Dhammaan dadweynaha iyo shacabka muslimiinta, dhalinyarada wiilal iyo gabdho isugu jira oo qaangaarka ahi oo caqli iyo xikmad Alle siiyey, waxaan ka codsanayaa inay muujiyaan isgarab istaag. Qof walba oo Soomaali ah, Muslim ah, oo maanta inaad caawiso u baahan, waxba ha ka hagranin. Caawi, cadowga isku meel uga soo wada jeesta, markaas Alle wuu idinla garab gelayaa oo idiin fududaynayaa hawsha aad dadkiina u haysaan. Ma xaq baa in maalin walba ilmahana laga xado ama aan aragna caruur la baafinayo maalin kasta? Isweydiiya midda. Haddaynan u istaagin ama dhinaceena aan kala ilaalin, wallaahi inay hooyo badani ooynayso oo ay ciishoonayso. Ninkii isku daya inuu caruur xado ama uu kufsado, haddii sharciga la taabsiin lahaa ama bulshada meel uga soo wada jeesan lahayd, ma kula tahay in maalin kale nin kale inuu ku soo dhiiranayo? Waa maya jawaabta. Haddaba aan isgarab istaagno. Sida ugu sahlan ee aad samayn kartaan, aan qish yar idin siiyo. Adduunyada horumartay, ciidanka waxaa loo yeertaa marka ay timaado arrin aad u culus, balse dadka iyagaa deegaankooda ilaalo ka haya, oo qofkii cusub ee xaafadaha soo gala iyagaa isha la raaca oo la socda wax kasta uu qabanayo. Dadka kuwii isku deegaan ah baa isku duruuf ah, dadna isku xiga. Ka dhiga qabiilkaaga deegaankaaga, is-ogolaada oo tuugada iyo kuwa ubadkiina xadaya meel uga soo wada jeesta. Soomaalay, iscaawiya oo isku duubnaada, aad liibaantiine. Fariintan waa fariin aad iyo aad u muhiima oo aan isleenahay inay bulshadeenna wax badan ka bedeli doonto. Inala faafiya oo hadda inoo sheer gareeya.